gudoomiyaha golaha siyaasiyiinta Jubbaland ee dadka ku hadla luqadda Mayga Professor Garaad Cabdisalaan Axmed Garaad oo loo garan ogyahay Professor Mulla iyo golihiisa ayaa aad u dhaliilay maamulka Jubbaland ee haatan uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu ku tilmaamay inuu yahay hogaamiye kaligiis taliye ah waa sidoo hadalka u dhigay marka xigta idaacada TV-ga RTN waan u mahadcelinayaa fursadan ay siiyeen gaar ahaan wariyaha Maxamed Deeq aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo ragga farsamada ku hayo inta ka bacdi inaga horta waxaan la yiraahdaa oo sanad ka hor aan aasnay golo la yiraahdo golaha siyaasadda Jubbaland ee dadka ku hadla afka Mayga ama af Mayga dadkaas oo ah dadka degan Jubbaland oo asalka ku ah oo deegaanka loogu yimid isla markaasna ah run ahaantii dadka ugu badan majority-ga walow tirakoob rasmi ah la sameyn haddana qiyaasta deegaanka markaan fiirinay aan degannahay iyo tuulooyinka aan leenahay Jubbaland oo dhan boqolkiiba 75 ilaa 80 waa dadka af Mayga ku hadla ama jaleexa ahaadaan ama jireer ha ahaadaan oo deegaankaas degan dadkaas iyaga ah yaanu aasnay golahan siyaasadda Jubbaland waxa aan doonaynaa inaan qabano oo aanu aasnay golahani waxa weeyaan in uu noqdo codka dadka majority-ga ah ee Jubbaland runtii la xaqiray ama maxay ahayd xusulka lagu riixay oo aan la siin cadaalad iyo sinaan Jubbaland dhexdeeda dadkii gadaal ka yimid oo kooytada ahaa oo deegaanka ay soo dejiyeen dadka iskale asalkiisa oo ah dadka Mayga ku hadla majority-gooduna ay yihiin dadka Digli Mirifle yaa waxa weeyaan run ahaantii dadkaas iyaga ah xuquuqdooda lagu xadgudbay dadkii kooytada ahaa ayaa la wareegay awoodaha Jubbaland gudoomiyaha golaha ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inaysan helin saamigii ay ku lahaayeen maamulkaasi wasiirada qoliyaha hadda meesha ugu badan oo Mayga marka la isku daro ma haystaan ilaa iyo maxay ahayd 7 wasiir waxaan u maleynayaa Digli Mirifle waxaa la siiyay 2 wasiir iyo 3 ku xigeen baa la siiyay ayagoo ah dadka deegaanka ugu badan ummadaha kalena xabad baa la siiyaa oo iyagoona afka Mayga ku hadla oo kooban markaas laakiin xaq ay lahaayeen marnaba lama siin xagga baarlamaankan laga siin xagga golaha maartay wasiirada iyo xagga agaasimayaasha xukuumadda wax laga siiyay oo maanta la sheegi karaa ma jiraan ninka la yiraahdo kaligii taliye Axmed Madoobe isaga ayaa waxaan qaybsada sidoo doonu yeelaa 2 nin oo dadkan maxay ahayd qabaa'ilka kala ka tirsan dhowr xabo isaga taabacsan ayaa jira oo uu leeyahay jabhadeedii ahaan jireen Ras Kamboni nimankaas wax siisiya wax yaro ku turtuur ah ugu dambeyn wuxuu baaq cod dheer iyo mid gaaban ba u diray siyaasiyiinta isbedel doonka ee dalka inay ka shaqeeyaan danaha dalka iyo tan dadka Soomaaliyeed mucaaradkan waxay la tahay hadda 10 bay arkeen dagaal ninna wax kuma helayo Soomaalina ninka Soomaaligana walaalo wuxuu ku dhaama male sharciga iyo nidaamka iyo dastuurka iyo nabadgelyada in la qaatana wax dhaama ma jiraan ina hor u soconaa rabnaa wax badan baa dib u dhac ugu dhacay waa 60 jirsanay dawlad ahaan haddana ummadeena waa socon weysay waa gaajeysan tahay waa tabaalaysan tahay cudur iyo balaaya laaya aqooni la'aan baa ku dhacday jahli waxay u baahan yihiin in loo turo loo naxariisto sharciga iyo nidaamka la degsaday in lagu socdo oo isagu cadaalad ku dhisan haduusan nabad iyo uusan qaadan dib u heshiisiin oo soo ogolaan oo ka tanaasulin sheegashada oo madaxweynenimada sheeganaya hadda una diyaar u noqdo Jubbaland inay isu yimaadaan la wada fadhiisto cadaalad wax loo qaybsado markaas waa suuragal inuu yimaado oo la heshiiyo laakiin cadaalad darro iyo dulmi aan ku soconayo dictatornimo meesha rabaan taga dadkan muqoonina xuquuqdooda dhacaya cid ka yeelis male marka halkaas inay shaqaaqad ka dhacdo waa dhici kartaa haddana wali cadaalad la sugin oo sinaanta la sugin oo sharciga la ilaaliyo Maxamed Deeq Jito RTN TV Baydhabo